sharafkugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiranayse callankaagu waa hibo sharafkugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiranayse haybadu waxaa waa wado burburtay oo dib u dhalatay burco ilaa berbere iyo weliba dowga sheekh saaxiibayaal soo dhowaada maanta waxaanu idiin haynaa warbixin gaara oo ku saabsan wadada muhiimka ah ee isku xidha magaalooyinka burco sheekh iyo berbera waddo muhiim ah muddo dheer burbursanayd balse maanta muuqaal cusub leh iyo sidoo kale dowga taariikhiga ee magaalada sheekh ayaanu warbixin aad iyo aad u tafatiran idinka haynaa ee halkan isha ku hay daawade waxaan isna muuqaalkan ka maqnayn muuqaal qurux badan oo aan ka duubay magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer horumarka ballaaran ee ka taabagalay iyo weliba magaalada taariikhiga ee sheekh oo halkan iyadan muuqaalkeeda aad kala socon doonto fadlan daawade waxaan kaa codsanayaa markuu muuqaalku soo gaadho inaad subscribe like comment iyo share samayso aad iyo aad baad mahadsantihiin sharafkugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiranayse muddo sannado badan ah wadadan oo ka mid ahayd halbowlayaasha dhaqaale ee Somaliland waxay ahayd mid si xun u burburtay dhagaxaan iyo godad waaweyn buundooyin burbursan ayaa ka dhigay wadadan mid khatar ku ah naf iyo maalba ganacsatada rakaabka iyo xoolo dhaqataduba waxay wajahayeen dhibaatooyin joogto ah safarro gaadhaya 2 saacadood waxay mararka qaar noqonayeen kuwa qaata 5 saacadood iyo wax ka badan burburka ka jiray wadada dartii hase ahaatee dib u dhis iyo casriyeyn ballaaran oo lagu sameeyay wadada ayaa waxaaba maanta bedelay waxaana wadadu ka dhigan tahay sidaan aad arkaysaan sharafkugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe waa haleeladiino horweyn ku irmaano aad ku hiranayse dowga magaalada sheekh oo ah marinka isku xidha gobolada bariga Somaliland iyo galbeedka ayaa ahaa mid aad iyo aad u burbursan oo dayac badani ka muuqdo hase ahaatee waxaa intaasi u dheeraa dowga sheekh inuu ahaa mid ka mid ah meelaha ugu buuraha badan Somaliland isla markaana si casri ah loo dayactiray dowgan oo caan ku ahaa leexleexasho badan daruuro si lama filaan ah u soo dega iyo roobab kediisa hadda waxaa loo sameeyay biyo mareenno cusub iyo biraha safety-ga ee kantaroola in aan si fudud looga dhicin wadada maadaama oo uu leexleexadkeedu aad u badan yahay gaadiidkuna ay si fudud isugu dhaafayaan sharafkugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe wadadan oo ahayd waddo dhaawacday isu socodka ganacsiga dadka iyo dhaqaalaha guud ahaan Somaliland waayihii hore maanta waxay noqotay waddo daweysay dhaawacyo badan waa waddo dadka midaysay ganacsiga dardargelisay noloshana kor u qaaday waa waddo muujinaysa in Somaliland ay horumar gacanta ku hayso sharafkugu hagoogane ciidaadu waa hodan aad ku haqabeeshe saaxiibayaal weli safarkeenu waa uu sii soconayaa hadda waxaynu bilaabi doonaa horumarka iyo taariikh yar oo kooban oo ay leedahay magaalada sheekh oo ka tirsan gobolka saaxil
magaalada Sheekh waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan leh ee ku yaala gobolka saaxil ee Somaliland. Waxay caan ku tahay buuraley dabiici ah. Magaalada Sheekh waxay ku taallaa buuro dhaadheer oo qiyaas ahaan 1500 oo mitir ka sarreeya heerka badda. Cimilo qabow iyo qoyaan leh oo sanadka badankiisa ka jirta waxay ka dhigtay deegaan neecaw dabiici ah leh oo lagu raaxaysto. Bilicda magaalada iyo deegaanka. Guryaha intooda badan waxay leeyihiin dhismayaal qurux badan. Xaafaduhu waxaa ka muuqata nadaafad iyo nidaam nabadgelyo ah taasoo kor u qaaday bilicda guud ahaan magaalada. Dhulka cagaaran iyo roobabka dabiiciga ah. Xilliyada roobka, buuraha hareeraha ee magaaladu waxay isu beddelaan dhir cagaaran oo doog leh. Dhirta ubaxa iyo geedaha midhaha leh ee deegaanka ku yaala ayaa u gooni ah magaalada Sheekh. Dhismayaasha taariikhiga ah iyo waxbarashada ay ku caan tahay magaalada Sheekh. Sheekh waxay sidoo kale lagu yaqaanaa in ay tahay magaalo waxbarasho, halkaas oo dugsiyo qadiimi ah oo taariikhi ah ay ku yaalaan sida dugsiga Sheekh Secondary School iyo jaamacadda xoolaha, waxaanay ahayd xarun aqoon iyo iftiin lagu faafiyo qarniyo badan. Nabadgelyada iyo deganaanshiyaha magaalada Sheekh. Sheekh waa magaalo si weyn loogu ammaano nabadeeda, dadkeeduna waxaa loo yaqaanaa dad soo dhoweyn iyo dhaqan wanaagsan. Dalxiisayaasha iyo dadka socdaalka ah ayaa si kalsooni ah ugu safra magaalada Sheekh. saaxiibayaal, weli safarkeennii ayaynu ku guda jirnaaye waxaynu usii dhaafi doonaa magaalada Sheekh ilaa iyo magaalada Burco aynu ka gaadhno. Waxaynu warbixin tafatiran ka diyaarinaynaa magaalada Burco, isla muuqaalkan aad ka dheehan kartaan. Magaalada Burco waa xarunta gobolka Togdheer, waana mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna miisaanka culus ee ku yaala Somaliland. Waxay leedahay astaamo gaar ah oo isu geeya taariikhda, dhaqanka, ganacsiga iyo horumarka muuqda ee magaalada. Magaalada Burco oo sanadihii u dambeysay ku tallaabsanaysay isbeddel muuqda, waxaa magaalada Burco ay wajahaysay horumar la taaban karo oo ku aadan dib u dhiska iyo fidinta wadooyinka gudaha magaalada isku xidha. Wadooyin badan ayaa si casri ah loo dhisay, loogana dhigay kuwo fidsan oo laami casri ah la saaray. Jidadka cusub waxay isku xidhayaan xaafadaha muhiimka ah iyo suuqyada ganacsiga ee magaalada. Waxaa si gaara loo eegay bilicda iyo nidaamka wadooyinkan. Magaalada Burco waxay leedahay 2 biriish oo muhiim ah kuwaasoo isku xidha wadooyinka magaalada isla markaana fududeeya xilliyada roobka isku socodka magaalada si ay dadku uga tallaabaan dooxa weyn ee loogu magac daray gobolka Togdheer, isla markaana dhex mara magaalada Burco. Deegaan ahaan dadka ku dhaqan magaalada Burco waa dad degan, laguna yaqaano soo dhoweyn, deganaanshiyo iyo dadnimo ku dheehan tahay dhaqanka Soomaaliga. Waa xarun lagu faano oo dad aqoon-yahano, haldoor dhaqan iyo ganacsi horumar ah sameeya. Suugaanta iyo masxafyada taariikhiga ayaa Burco si weyn uga soo baxa. Burco waa gobolka ugu hodansan xagga xoolaha nool ee Somaliland, geela iyo adhiga. Magaaladu waxa ay hodan ku tahay suuqyo waaweyn oo xoolaha lagu gato iyo sayladda ugu caansan geeska Afrika oo ku taala magaalada Burco. Sayladaas oo xoolaha laga iibsho loo diro dalalka khaliijka. Dhaqaalaha gobolka iyo xitaa dalka intiisa kale waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha kuwaas oo soo mara magaalada Burco.